gudaha xafiiska hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel waxaa laga dhaxelay jajuus. Arrintan ayaa ahayd midda ay baaritaanka ay ku hayeen saraakiisha ammaanka ee dalka Jarmalka dhowrkii bilood ee la soo dhaafay. ninkan baaritaanka lagu hayo ayaa ka shaqeynaya xafiiska saxaafadda ee xukuumadda ee dalka Jarmalka waxaana lagu eedeeyay in uu ahaa jajuuse dalka Masar. ninkan baaritaanka uu ku socdo ayaa la sheegay in uu xogo ka bixinayay xubnaha mucaaridka ah ee ku sugan dalka Jarmalka ee ka soo horjeeda dowladda uu madaxda uu ka yahay Cabdilfataax al-Siisi, kuwaasi oo ay ka mid ka yihiin xubno ka tirsan ururka Ikhwaanul Muslimiin iyo dadka qibdiyiinta. sidaanu ka soo xiganayno jariidada The Bild ee maalinlaha ah ee ka soo baxda dalka Jarmalka, ninkan ayaa ahaa shaqaale heerka dhexe ah kaasi oo ka shaqeynayay adeega sodcaalka ee xafiiska warbaahinta ee xukuumadda dalka Jarmalka. ninkan ayaa dhammaysan lahaa imtixaan kadib 2 sano oo tababar ah oo uu ku jiray xirfadiisa. xiriiraalyaha federaalka ee dalka Jarmalka ayaa sheegay in ninkan la xukumay uu baaritaan uu ku socdo isla mar ahaantaasna la dhammaystiri doono dhowaan. Bilayska dalka Jarmalka ayaa baaritaanada ku bilaabay ninkan ku eedeysan jajuusnimada December sanadkii hore, waxaana wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Jarmalka uu sheegay in arrintan ay qayb ka tahay kooxo xagjir ah oo dalka Jarmalka waayadii ugu dambeysay ku soo farabadanayay isla mar ahaantaasna waday arrimo ku saabsan nacaybka iyo jajuusnimada.